maanta waa maalin aad u weyn, waa maalin qiimo badan, waa maalintii la asaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa 12 Abriil. awalan waxaan salaamayaa dhammaan madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed oo ah taliyaha guud ciidamada qalabka sida, taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaan madaxda hogaamada sareeyayaasha, taliyayaasha noocyada ciidamada, salaan dabadeed dhammaan ciidanka saraakiisha kale, xidiglayaasha, saraakiil xigeenka, askarta dableyda. salaan dabadeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la asaasay 1960kii, maalinkaas oo ah maalinkii 12 Abriil loo aasay ciidamada. marxalado kala duwan ayuu soo maray ciidanka. maalinba geed baa la harsanayay ilaa markii dambe uu gaaray ciidan xoog badan oo ciidamada dalalka Afrika ugu xoog badan inuu ka mid noqdo ayuu gaaray. alxamdulilah, taa dadaal iyo isxilqaan iyo aqoon ay lahaayeen saraakiishii markaas hoggaanka haysay oo u horeeyey jenaraal daawud cabdullaahi xirse, jenaraal maxamed siyaad bare, maxamed cali sabatar, jenaraal maxamed cali sabatar iyo saraakiishii kaloo ka dambeysay ayaa ciidankaasi saa u soo dhisay oo door weynna ka dhiilay. intii dhimateena waxaan leenahay saraakiishii bar baa nool, intii dhimatay allah u naxariisto, inta noolna caafimaad allah siiyo. aad baan ugu faanaynaa saraakiisha ayaga ah, dad qiimo badan bay ahaayeen. ciidanka waajibkay lahaayeen way ka baxeen, heerkii la rabana way gaarsiiyeen, wayna ku mahadsanaayeen. ciidanka dagaalo badan buu galay. u horeeyay dagaalkii 64kii oo anigu marka 4 jir aanu ahayn. dagaalkaasi waanu ku guulaysanay, guul weyn baa laga gaaray, ayadoo ciidanka tir ahaana uu yaraa, agabka uu haysana iska yaraa amaba qadiim uu ahaa. haddana saasay tahay, dadnimada Soomaalidu ilaahay siiyey oo u dhalatay ayaa lagu difaacay dalka. waxaa xigay 77kii, dagaalo yarar kale way jireen. waxaa ka sii dambeeyey dagaalo kale oo fara badan. waan la ogaa 77 meeshii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed uu gaaray. taariikh baynu haynaa oo caalamka o dhan ka hadlayo. haddii ruushka uusan soo geli lahayn aanan Soomaali aan la soo celin kari lahayn. sharaf bay leeyihiin ciidanka, aad bay mataqaanay magac iyo karaamad waddanka ay u soo jiideen. ciidanka maanta jirana taas iyo ka badan ayaan rabnaa in heerkaasi aqoon ahaan, agab ahaan iyo dhinac walbaba in la gaarsiiyo. waa waxa hadda aan ku fikirayno, dadaalkeedana la wado. insha allah wayna gaari doonaan. shalay meeshaan joognay meel ka sarreyso inaynu gaarno ayaan rajaynaynaa. hadalka hambalyo unbuu ahaa ayaanan dheerayn. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiinba. taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyayaasha noocyada ciidamada, madaxda hogaamada, sareeyayaasha, gaashaanlayaasha, xidiglayaasha, midlayaasha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskoodiiba waxaan leeyahay sanad guuro wacan. waxaan ilaahay ka baryayaa sanadkaa sanadkiis annagoo intaa ka fiican horumar badanna gaarnay inuu ilaahayna gaarsiiyo, innagoo caafimaad qabna, guulo badanna waddanka u soo hooyanay inuu ilaahayna gaarsiiyo ayaa ilaahay ka baryayaa. waxaan leeyahay sanad guuro wacan. waxaan leeyahay nabadii caafimaad ku ciida. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed idinkaa laydinkaga fadhiyaa ummaddaani
siday nabad ugu seexan lahayd idinkaa laydinka rabaa taasna waa mid annaga hortaal sida aan uga shaqayn lahayn habeeni maalin waana la wadaa lagana seexan maayo waxaan leeyahay hambalyo